Odayaal iyo dhalinyaro kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxay ka soo horjeesteen magacaabista Golaha Wasiirada cusub iyagoo sheegay in si cadaalad darro ah lagu dhisay. Waxay sidoo kale tilmaameen in beesha ay ka soo jeedaan xildhibaanadooda si qaldan loo soo xulay, ayna diyaar u ahayn xilligan in la shaqeeyaan maamulka Galmudug. Waa kuwaana qaar ka mid ah dadkaasi oo goobta ka hadlay. Waxaan iskugu nimid shir jiraa'id oo maanta halkan aan ku qabanayno annagoo ah beesha Sacad Odow Cawareere ayaa halkan waxaan iskugu nimid in aan ka hadalno cabasho aan ka cabanayno in dad siyaasiyiin ay doonayaan 2021 in ay boobaan xildhibaanada 2021 la rabo in la soo xulo kuwaas oo u diyaar garoobaya inay odayaal dhaqan oo odayaashii dhaqan u soo xuli lahaa iyo dadkii inay kala qaybinayaan inay ay sameynayaan dhibaatooyin badan oo dadka dhaxdiisa ah. sidaa darteed waxaan ka cabanaynaa arrintaas in dadka la iskugu yeero beeshu ay ayadu matalaadeeda iyo odayaasheeda iyo waxgaradkeeda ayadu talada ay leedahay inay gaartay go'aankeedana ayadu qaadato oo aan dad gaar ah oo daa gadaashiisa ka maamulaya inaysan beeshu yeelanin. sidaa darteed waxaan halkaan aan ku cadaynaynaa maantay waxaan leenahay beesha Odow Cawareere in ay ayadu ka tashato aayaheeda iyo masiirkeeda iyo dad aan u qalmin xildhibaannimada beesha in aysan u soo hormarin oo aysan qaadan doorkaas inay beeshu ka tashato masiirkeeda iyo dhaqankeeda iyo aqoon-yahankeedu inuu si tala guud ah uu ku soo saaro xildhibaanada 2021 odayaashii dhaqanka beesha Odow Cawareere habar gidir in la yiraahdo lagu tagrifalo awoodoodii oo wiil meel uu ka raran yahay aan aqoon oo hawsha ku tumanayo marka taasina u maleemayeen wax si hirgala inay tahay insha Allah marka isku tashi iyo meel kasta mudug Mareykanka Muqdisho marka meel kasta la iska wareystay arrintu waxay ku soo biyo shubatay in madaxweyne Axmed Kaariye aan ka codsano arrintan inaan loo dul qaadan karin sii socon karin oo go'aanka iyo masiirka dhaqanka loo daayo aan lagu faragashan insha Allah. Abdiraxmaan Kambaale, Som News TV, Muqdisho.